waxaan rabnaa inaan cadeyno inaan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyay darjirka daxsoon insha Allah tabaaraka wa tacaala maalinta jimcaha marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan haddaan maanta xaqiiji weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabanno macnaheedu waxa waaye dariiqii dawladnimada waxaa hor taagan caqabaad iyo diktatoriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dawlad burburin dawladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horeysana waa xurriyaadka dadka xurriyaadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga dawladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda taas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqeynayaan dawladnimada Soomaaliya inay dhisanto si nabad ah isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto waxaadna ka garan kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacaya wax ka badan aan sameeyno waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siino dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lana la shaqeeyo taas ayaana dhacday mabda'aas mabda' cusub ma aha waa mid shalay aan aaminsanayn maanta waa aaminsannahay birri waa aaminsannahay waa la noolaanaynaa waa la dhimanaynaa dadkaan ugu yeeraynaa waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xurriyadda la qaaday mabda'aas haddii lagu adkaysan lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn maanta Soomaaliya meesha meel aan hayn joogi lahayd marka ma ogolaa karno 30 sano oo burbura kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo awoodda dawladnimada lagu takrifalo doorashada meesha ay ka baxdo waxaan rabaa inaan idiin sheego cid aan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegto annaga noo nisbay karta ma jirto warkaas in la fahmaan u malaynaa waa golaha waxaa leeyahay golaha murashaxiinta qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta qof aan xil u haynin murashaxiinta aan ka tirsanayn afayeen aan u ahayn ayaa hadlay annaga dhiigeena looma banaysan karo waxaan u malaynaa aragtidaas waa cadda midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celino labada madaxweyne goboleed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u haajirin aad iyo aad uga mahad celinayna waxaan aaminsannahay inay tahay mawaaqif adkeynaysa dawladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay Dhuusamareeb qayb kama ahayn kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey dadka danleyda ah oo doorashada galaa iyaga ahayna ay ahayd in laga tixgeliyo mana dhicin laakiin haddana waa soo dhaweeyeen waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhaweeyeen waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso waxayna u sii dhimanaysaa in reality-ga la iska indhatiraayo aan la rabin
khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xalliyo inaan la rabin. waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military. waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military, boolis, nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci. waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo. mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal. marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda'. ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn. intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo. maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa oo amarka qaadana. ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada. madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo. marka 4 sano waa dhammaatay. yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda qaadaya. hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan, qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigoodu waa laba laabmaya. waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay. arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto, dowladnimadu inay sii socoto. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto. tajaaribta adduunkaana tustay, annagaa hore u soo marnay, dowlado badan oo afrikaanaha soo maray, kuwa carabaha soo maray, kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn. marka ma waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annagoo u jeedna? waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga. waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno. maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburkii. marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga, faraha kala baxaan siyaasadda. ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga, kala baxaan siyaasadda faraha. waxaan rabnaa inaan u mahad celino dhalinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay faldambiyeedka la amray ay ka qayb qaadato. baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin. waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada. mushaaraa lay siiyey, askaraa layga dhigay. dowladnimo kuma dhisanta intaas. dowladnimo waxay ku dhisantahay aragti, falsafad iyo waxay ku dhisantahay mabaadi sharci. dowladnimo ku dhisantahay. marka waxaan rabnaa inay u laabtaan waxa saxda ah. waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta. dhammaantood waxay jeclaa lahayn berri doorasho in la qabto. berri dambe iska dhaaf, berri in la qabto. laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaadan karo. waxaan aaminsannahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii 17 September maalinba maalinta ka dambeysa khilaafku waa sii fogaanaya. maanta waxay taagan tahay dowlad goboleedyada shala qaybka inay yidhahdaan kama qayb gelin. taas waxay koos garaynaysaa doorashadii inaysan dhicin. marka waxaad isweydiisaa kala fogaashadan yaa mas-uulka ah. yaa la rabaa dalka inuu isku haayo? yaa la rabaa dadka inuu isu keeno? yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo? yaa laga rabaa? mas-uuliyaddaas way saaranta. waxaan u maleynayaa inaadan jawaab iiga baahnayna. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed maanta waa maalin muhiima. waxaa samaysmaya taariikh Soomaaliyeed. 2 dariiqa noo furan. dariiqa sharci aan ku dunno inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada, xukun wanaagga, isu tanaasulka inaan marno. labadaas inaan kala dooran. waxaan hubaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan iyo ciidan fara badan iyo dhaqaale fara badan. xaqa laguma fiiriyo, dowladnimada laguma fiiriyo. waxaa lagu fiiriyaa mabaadi'da ay ku dhisanta.
marka annaga ka duulayna mabaadi'daas dowladnimo annagoo ka duulayna adkaynta sharciga annagoo ka duulayna wada jirka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qeybayn ka soo qaateen dhisidda qarannimada haddana waxaa lagama maarmaana ayaga iyo dadka kaloo muhiimka inay qayb ka qaataan wada hadallada inay qayb ka qaataan maxaa yeele dadkii soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala aragti duwanaadeen waktigeenni waaye annaga aan faragelin lahayn